konton neef oo ka mid ah 166 neef oo lo' ah oo laga soo aruuriyay qaar ka mid ah wadooyinka degmooyinka gobolka Banaadir ayaa maanta lagu gowracay xerada Piazza Libera ee degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir kadib markii dadkii lahaa ay bixin waayeen ganaax lacageed oo maamulka gobolka Banaadir uu ku soo rogay. maamulka gobolka Banaadir ayaa horay u soo saaray amar ah in xoolaha laga soo aruuriyo wadooyinka caasimadda la geyn doono xero loo diyaariyay loogana baahan yahay dadka iska leh inay ku soo raadsadaan 24 saac gudahood ayagoo bixinaya ganaax lacageed haddii kala la qali doono. maamulka gobolka Banaadir oo mudooyinkii dambe waday olole wadooyinka caasimadda looga nadiifinayo xoolaha ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay tii ugu horeysay oo hadda maamulku uu qaado sida uu sheegay agaasimaha nadaafadda iyo bilic soo celinta maamulka gobolka Banaadir Maxamed Suudi. waxaan joognaa Piazza Libera degmada Xamarjajab shalay howlgal ka dhacay gobolka Banaadir qaybaha weli uu cadde iyo bartamaha ayaa lagu soo qabtay xoolo magaalada dhibaato ku ahaa bilicdeeda iyo nadaafadeeda. shirkaas waxaa fuliyay 17 degmay 3 deegaan maamul gobolka Banaadir iyo guddi oo duqa magaalada u magacaabay soo nooleynta bilicda magaalada Muqdisho oo gudoomiye u yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Banaadir gudoomiyabo maanta 24 saac kadib waxaan fulinay go'aankii amba dikreetadii duqa magaalada ay ahayd in xoolaha magaalada ku nool ee laamiyada daaqa nadaafadda iyo bilicda magaalada dhibaateeya in la soo xareeyo muddo 24 saac hadday joogaan ee dadkii lahaa ee imaan waayaanna la gowraco sida ay dikreetada ku qoreed. runtii waxaan soo xareynay shalay 168 neef 166 neef iyo 11 ariya. waxaan ganaaxnay 30 neef oo lo' ah 24 saac gudahood iyo 11 ariya. waxaan halkan intii hartana ku fulinay gowracii oo duqa magaalada oo soo saaray in la gowraco la baceeyo loo qaybiyo dadka danta yar ee magaaladan degan iyo dadka u baahan iyo sidii ciidamada xabsiyada ku jiro iyo dadka ciidamada xabsiyada waardiyay iyo maxaabiista jeedalka ku jiro. waxaan markaa rabaa inaan halkan uga faa'iideysto mar labaad shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. magaaladani ma ahan maahan waa caasimadii dalka Soomaaliyeed looguma sii dul qaadan karo in inta magaalada miigeeda xoolo laga keeno laamiyadii toonka magaalada ahay Maka al-Mukarrama lagu soo fasaxo. digniina fara badan 3 jeer barxadan Piazza Libera degmada Xamarjajab la keenay 3 kala duwan howlgal 3 inta la ganaaxa magaalada inta lagu sii diyaa barti laga miisaayo meeshii la geenay. shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inuu sheegno weli fursada banaan duqa magaalada weli naxariis u sameeyna amarkiisa weli naxariis oo ka sameeyna dadka shalay la soo arkaan digniin rabnaa in halkaan uga dirno. dad waxaa shalay la soo arkay markay ciidamada iyo howlgalka arkeen xoolihii lugta ka xireen xalayna ay soo daayaan. waxaan ku soo socnaa maalmahan aan operation ka sameeynaa moorooyinka magaalada ku yaalaan in kugu imaanayna dadka iskalena waa loo liis gareysay yihiin waa la soo xirxiraa xoolahana waa la gowracaa. haddii aysan magaalada aysan uga bixin 24 saac gudahood dadaysan xoolaha ay guryaha ay ku haayaan ay lugaha ka xireenay magaalada 24 saac gudahood uga bixin annagu ka waabamayno kana istaagi mayno. amarka guudna waa qabnaa taliska booliiska Soomaaliyeed iyo ciidanka ilaalada deegaanka iyo 13 degmo iyo 3 deegaan amar waxay ku qabaan in guryaha loogu galo dadka ganacsiga ugu haysta magaalada xoolaha ee saxaradooda laamiga soo dhigaayo dhirtii magaalada laga dhiray laayahay baaqi oo madaxweynaha ku baaqa laga fuli laayahay oo ahayd magaalo cagaaran. sidee aniga magaalo cagaaran ku heleynaa haddaan dhirta laan loodiina daaqaysay arigiina ma loo dul qaadan karo. hadda way yartahay tan waa arkaysaan waa la gowracay biri subax operation bilaabanayo 500 qof hadii la soo qabtana birta la marsiina waana loo qayminaa. xoolahaaga hadda ummadda ku dhibayso haddaba magaalada kala bax ina ummadda ku dhibto maahan walaalow ama walaalay kala bax magaalada fursadaad haysataa biri subax ka dambeeyo hadda kala bixi weysana hadda awood ku lahay karta magaalada ku lahay dawladda Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir hadda iska celin kartan guryaha joog. Sida Cabdi Taaliil Universal TV Muqdisho.